su'aal yaa qaba qof waa la su'aal qaba la waa markii dama qof gacan taagay markii su'aashi aan weydiyo ka jawaabay hadiyad baan gacanta ka saareen qabso ma sha Allah yaa qaba ma badanaysaa ka waran haddana hadiyad kala si yaa kala su'aal qaba idinka la idinka rabaa ardada inaa ka sameeysa inay su'aal idin weydiiyaan ha ka cabsan su'aal weydii qof wax baaraya noqdo qof laakiin qof wax ka xafidaaya oo iska xafidaaya dugsiga sare waa ku aragteen dugsiga sare waxa ku aragteen hooska meesha uu aad u madow yahay waxa la dhahaa ambara meesha uu hooska khafiifkan waxa la dhahaa pinampara su'aal arday ku soo aaday oo dugsiga sare la saxayo waagii dawladda wali waqti hore la saxayo arday arkay ambara mid wuxuu yiri markuu saxayay markuu qoray wuxuu yiri ambara waa habar gabowday oo ka ciwaysay waxaan u qaatay duq ambara la dhahay inay xaafadooda joogtay hadaa garaweyso waxa garaweyso duq ambara aadaysan meelii kale aadaysan illa wixii waa faham weysay waxaan u baahanahay effective educator qof ardadaada casharka ugu tala gashay wada gaarsii casharka waa fahamsii macalinkaas waa keemar macalinka wax ku oolka ah macalinka effective ka al-mudarris al-fa'al macalinkaas waa macalin sidee ah macalinka horta maadiis ma ka adagay ya ma maadiis waa yaqaan soma maadiis waa yaqaan laakiin inaad مثلا waxa aad dhigaysa inaad taqaano iyo sida u dhigaysa inaad taqaano waa kala muhiimsan yihiin ya isku mid maaha waxa aad taqaano aad dhigayso iyo sida aad u taqaano waxa aad dhigayso sida aad u dhigayso waxa aad taqaano isku mid maaha labadood marka aqoon waqasab waa inaad macallin maadada ka adag tahay wasaf dil weydiiyo su'aalaad kulli u dhisayin waa laga rabaa waxyaalaha qaarkood hal iyo buuqa hataa inay ku taalo inay meel qaarkood qaldan tahay oo aan qalad u qaadano aan u sameeyna ardayga inuu wax diidi karo arday u sameeysan ardayga waxaan ku iri fasal iyadoo lagu jiro waxaan ku iri dhulku waa kubad ardayga soo booday macallin beenta ka daa ardada ka daa jaamacadna waaya beenta ardada ka daa waxaan ku iri ma waxaad rabtaa jeclaan lahayd in aayad quraan ku sheego ha macna aayadaas rabay ee iga raali ahow marka idinku marka hore yaanan xoog saarin ereyana la dhahay kaliya soma hormaana leedahay waxaas aniga casharka waa laga baxaya adiga iyo adiga waa soma saas waxa kula weynaanaya kaliya qofku waxa marka wax ka fakadeen marka u sharax wax basiida weydii waxaan ku iri cirka marka aragto diyaaradda marta diyaarad ma aragtay korkeeda marqiiq bixisa markii si fogaato say noqotaa ma hoobata markii naga si fogaato qiiqeeda si hoobanaya dadka korkooda ay marayso ma hoobanaysa korkooda maraysa anaga korkeeda marayso qolay u soo hoobatay waxay ka mid tahay wax iska kubada ku jirnaa aayadaha quraanka ma heble ka raadso markii idin dhibin ina ardayga naqdi inuu sameeyo aka diido wax mas'uuliyadda ardada laga rabaa dil weydiiyo ardadaas yaa wax yaqaan heerarkiisa waxa ay kala yihiin adaa laga rabaa mas'uuliyadooda macalinka wax ku oolka ah waa macalinka waxa uu gaarsiiyay inay si fiican u gaareen yaqaan hubiya ardadana wax fahamsiiya ee aan xafidsiin isbar macallin hadaa tahay waa inaad shay ka taqaan hal shayna shay kasta waa inaad ka taqaan hal shay kasta ka aqoon waxa weeye maadada waa inaad si fiican u taqaanaa maadooyinka kalena waa inaad ka taqaanaa jihooyinka warrama ardayga waxaan arkay arday badan oo marka la weydiiyay jihooyinka afarta sheeg tirinaya af Soomaali iyo Carabi ku sheegaya laakiin jiha bari aan sheegayn macalinka adiga hadaa marka dhigaysa maadadaas maadada cilmiga bulshada waxa Soomaaliyada mawaajib ijtimaaciga dhigaysa oo aad u dhigtay jihooyinka ardayga hadaa banaanka geeyno aadan tusin jihooyinka laakiin hadda waad tiraahdo qor jihooyinka afarta ah ku bobsinaya ardayda la saaxiib waalid u noqo murabbi u noqo Soomaalidaas laakiin xuduud ajata kala jarta